دي gabadhiina waxay ku liidataa jirto ninkiina wuxuu ku liitaa jiro see la yeelaya waa in la manage garayn karaa waa in la maamuli karaa in la wada noolaan karo iyadoo ducfigaada la is og yahay iyadoo la iskabayo markaasi taa macnaheedu waxa weeye nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof mu'min gabadh mu'minada ma noco waayo buu nabigu leeyahay hadduu wax ay samaynayso wax necbaysto wax kaloo ay ku fiicantay baa jiro lagu raaco lagu wato idan qofka bini aadamka positivekiisa iyo negativekiisa markaad sugayso hadduu 60% 70% noqdo waa qof la wadi karayo maaha inaad tidhaahdo this and this 20% xun buu leeyahy oo ceeb masaa'il caynkaasi uu leeyahy masaa'il la wadi kara hadday tahay waa in la wado walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy istawsuu binisaa'i khayra war haweenka khayr u dardaarma buu nabigu yidhi war feer qalloocdaa laga abuuray feer qalloocdaa haddaas tidhaahda toosina way jabaysaa buu nabigu leeyahy yacni nabigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qaab loo wada dhaqmi karaa mar kasta inuu jiro siibana ninka inay mas-uuliyaddu saarantay warajulu raac kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyati buu nabigu qof waliba waa mas-uul qof walbana aakhira waxaa la weydiinaya raciyadiisii waxa lagu weydiinaya waxaa ka mid ah reerkii sida aad u maamushay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara maamulka reerku wuxuu u baahan yahay kow wixii naar lagu gelaya inaad ka ilaaliso wacdidid ilaahay baridid waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha baa nebi maxamed baa ilaahay ku leeyahy reerka far salaada idan reerka kow inaad khayr oo dhan ugu yeedhid waxaa kale gurigaasi looga baahan yahy waxa weeyaan guriga dhexdiisa luqada lagaga wada hadlo dabadda inay u baxdaa waa mamnuuc yani waxaa jira war ninka iyo gabadhu inay ku wada hadlaan ay bannaan tahay oo xalaal u ah laakiin inay labadooda dhaafta ay xaaraan tahay oo meel kale inuu u baxaa waa xaaraan warka odaga iyo islaanta u dhaxeeya gaarka ahi shareecadu waxay tidhi inaan meel kale lagaga warramin ama meel kale aanu u bixin weeyaan waxaan leenahay gabadha muslimadda wuxuu nebigu tilmaamaya hadday shanteeda salaadood tukato oo bisheeda ramadaan soonto oo farjigeeda ay ilaashato oo ninkeeda ateecdo waxaa la yidhahdaa jannada albaabkaa doonta ka gal yacni imaara biduuni taaca wax socda maaha madax baa tahay laguna aqbali maayo haddii lagu idhaha ka warran wax jira maaha waa mashkilad ku badan soomaalida dhaqankeeda guriga qura maaha soomaalida dhaqankeeda waxaad moodaa masaajidkan haddii la yidhaahdo afar soomaaliya loo dhibo madax baa tahay looma ogola inuu maamulay haddana dadkunba odhanay ma waxaan sidan la yidhaha macaynka lama aqbalayo asalku waxa weeyaan haddii madax la sameeyo dee madaxda waa in la aqbalaa gurigu madax buu leeyahay madaxdiisa haddaan la aqbalaynin dee waxba socon maayaan dumarku masalada waa inay fahmaan gurigu madax buu leeyahay yes madaxda waa lala talinayaa madaxda waxbaa loo sheegayaa madaxda waa waxa fiican baa la tusayaa laakiin akhiiran warku wuxuu noqdo haddaanay macsi ahayn waa in la aqbalaa haweentu gurigooda markay joogtay labadeeda waalid baa ugu mudan cid ay ateecdo labada waalid iyaga xorriyaddooda ka tanaasulay daacadoodii oo ninkugu daray markaad nin yeelato waxa warkiisa la hor aqbalayaa ninkaa ka horreeya labadaada waalid qofka dumarka ah ninka qaba ayaa ka horeeya maxay waalidka haddii warku noqonaya inay iskhilaafaan walidaalika daacadeedii waxay taagantahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saxaabi baa shaam iyo meelahan bay yimaadeen mucaad ibnu jabal iyo shaam bay waxay arkeen wadaadada kiniisadda oo loo sujuudayo dabeetana markii uu soo noqday ayuu yidhi waar nebiga mudan in iyaba wadaadkoodii u sujuuday ma nebi maxamed nebiga waa inuu sujuud baabu iskala dhaca nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalam war waxaanaad waddaa waa maxay suu yidhi ilaahi rasuulkiisiyo shaam baan ka imiyo waxaan arkay iyadoo kiniisadda iyo kuwii loo sujuudayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuudda ilaahay mooyaane cid kale in loo sujuudaa ma bannaana qof kale loomana foorarsado lowyadana dhulka looma dhigo laysumana gaabiyo loomana sujuudo sharcigu wuxuu banneeyo ixtiraamku ugu jira inaad salaamu calaykum tidhaahdo taasaa ah ixtiraam kama dambaysta ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu salaamu calaykum bay odhan jireen isagoo ilaahay rasuulkiisiiya dadna u fadli badan isagoo dad u fadli badan
wixii lagu karaamayn jiray waa inaad adna ku karaamaysaa dadka aad karaamaynayso laakiin hadday sujuud iyo rukuuc noqoto ilaahay unbaa iskale subxaana wa tacaala rabbuunbaa loo rukuuca loo sujuuda dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddiiba aan cid uun fari lahaa inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa buu yihi ninkaaga u sujuud sujuuddu soo maha daacada halkii ugu dambaysay haddiiba uun laba qof la odhan lahaa ha la isu sujuudo gabadhaan ku odhan lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninkaaga u sujuud taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhu daaca mutlaqa inay la timaado waxaa jirta gabadh maraykana waa tan la yidhi dunidu waa simanta rag iyo dumarku waa simayin muddaa laga shaqeeyay feminist groupkan iyo warka kan uu tiro batay guryihii baa dhismi waayey gabadh maraykana waxay tijaabisay ninkeedii iyo wixiiba isdileen way ka tagtay dabeetana baxtay samaysay research waxay raadacaysay guryuhu maxay u dumaan baxdigeedii way waday naag kastoo aan gurigeedu dumin bay soo waraysatay naa maxaad samaysaa waxay soo ogaatay guryaha aan dumin inay yihiin guryaha la kala dambeeyo ninka iyo gabadhu guryaha kala dambeeyaan inay tay dabeetana buug bay qortay la yidhaahdo markaynu tarjunno istaslimii lizawjik buug la yidhaaho naa ninkaaga isu dhiib buug la yidhahday qortay buugga yacni waxaad dareemaysaa fikradda tan sida baahida loo qabay dabcadiisii koowaad 100,000 oo nusqo ayaa maratay fi awali dabca gabadhii taajirad baabay ku noqotay buug yaraa waxay noqotay dadka marmuuqee wax la weydiiyo dabeetana waxaa bilaabmay ololo dambe oo dumar wadaan oo la leeyahay libaaxa haddaad isu dhiibta bay yidhaahdeen afkiisa waxa ku jiraad kala bixi kartaa yacni waxay tilmaamayaan ninka hadduu noqdo aan isdilladana dee gabadhu ninka xoog badan mayso haddii laakiin ay tahay aan ismaqallo waxa jeebkiisa ku jira way qaadan kartaa iyo isagaba idan waxa muhiimkii wuxuu yahay haweenta xaqa ugu weynee lagu leeyahay koowaad waa maxay waa xaqu taaca inay aqbasho ninka kan inay u hoggaansanaato maadaama iyadu dooratoo guursatay gurigiisana inay u ilaaliso waxaan ku soo koobaynaa markaa xuquuq badan baa la isku leeyay oo xaqii nafaqada ah dhaqaalihiiya ninkaa lagu leeyahy inuu dhaqaalaa bixiyo gabadha in la dhaqaaleeyo carruurteeda in la dhaqaaleeyo waxay u baahan yihiin in la siiyo dhammaantood ninkaa lagu leeyahy markaynu soo duuduubno waxaynu leenahay waa xuquuq tiro badan oo kutubta ay qorto laakiin haddii shareecadu siday sheegayso lagu dhaqmo guryuhu way dhisnaanayaan masaladan ku khatimayo dariskeennan maanta wuxuu yahay mashkilaadka gurigu waa bashar isu yimi soo maaha bashar isu yimi oo aan wax isku qabanina ma jiraan bashar isu yimi oo aan wax isku qaban ama muran dhex marini ma jiro xataa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muran ka dhacay oo intay haweenkii wax is yidhaahdeen uu nebigu gurigaba ka baxay meel dabada iska tegey oo saxaabadii yaabtay oo la war kutiri kutaani soo baxay nebigiiba dumarkii furay oo mushkiladii tiro badatay oo waxaan uga jeedanaa mashkiladii way dhacdaa laakiin inta badan bini aadamku waxa uu ku kala gedisan yahay waxa weeyaan sidee loo xallilaa mashkiladda how to solve the problem saad mashkiladda u xallilaysaa siiba guryahan dabadda yimi iyo reerahan dabadda jooga waa yeelkii hore waa laga soo fogaaday markii waddanka la joogay waxaa laga yaabaa gabadha qaraabadeed baa joogay eedooyinkeed habaryaraheed aabbaheed awowyadeed tolkeed ninka sidoo kale labadooda ka guracan cid la hadashaa la helayay cid qabataa la helayay xataa wuxuu ka xishoonayay wuu ceeboobayay oo dee reerka dhexdiisiiya wixii marka la yidhahdo warkan jacjacoorkee gabadhan sida u gelaya la yidhahdo wuu ka xishoonayay wax badan oo culturally qofka ku xeeran baa jiray oo inuu toosnaado iyo gabadhuba inay toosnaato keensanayay laakiin markii dabadda loo soo baxay kow culturekaasoo dhammi wuu lumay cidiba kuguma xeerree keligaa baad joogtaa beriskana mid waliba gaarkiisa uu helayaa gabadhuna beriskeeda gaar bay u heli kartaa ninkuna beriskiisa gaar buu heli karaa dabeetana waxay noqotay ayi mashkila yar oo dhacda
inay noqoto maryaha inoo kala gurun ma waxba kale awalba isugu keen jiray shandadaada qaado ay mashkila yar oo dhacda inay noqoto uun in reerku uu maryaha kala socdo oo u kala tago waxaa lumay markaa qiimihii gurigu lahaa iyo reerka iyo carruurta iyo ubadka iyo mustaqbalka ayaan qiimo la siinin waxaa qiimo la siiyey laba kelmadood oo laysku qabtay laba weedhood ama wax yaroo laysku qabto oo muran ka taagan yahay ayaa wixii wanaag ahaayee kaloo dhan ee la samaynayey lagu ilaabay waxaa habboon inuu muranku yeesho xad iyo qaab khilaafka loo daweeyo haddiiba uu guriga ka yimaado inuu yeesho qaab khilaafka loo daweeyo marka waxaan ku soo koobayaa uun haddii khilaafkaasi usluubkiisa la raaco waa wax fudud oo dawaysmi kara haddaan se la raacin waa burburka guryaha ee tirada badan le meesha uu ka yimaado maanta halkaasaan ku joojinaya wallahu aclam billahi towfiiq wasalaamu calaykum